safiya tusmo oo xaaladeedu aanay fadhiin meel xunna ay marayso kadib markay bixisay waraysigii dadku wada daawadeen loo soo hanjabay iyo xaalka ay ku sugan tahay gabadhaasi badbaad ay u baahan tahay la badbaadiyo laga yaabaa in sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin in the same time na waxa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto hadalkan safiya tusmo ka soo yeeray ee waxaan filayo waxa laga yaabaa inaanay dhicin sometime waxa laga yaabaa nolosheedu inay burburto halkii bay taagan tahay waa laba darami dooro geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa safiya tusmo waxaana lagu haystaa xoog iyo rikaatum wax walbana caawa banaanka soo dhigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh kulantu waana wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka iyo walaaka aftax boodhada ile goob kasta iyo goor kasta joogtaanba ilaahay waxaad ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad fadlan waxaan ka codsanayaa haddii ku soo gaaro barnaamijkaas inaad sii sheergayso channelka subscribe saar furagan bareelka saa noqoto qofka ugu horeeya la socda iftiiminta xaqiiqooyinka safiya tusmo fanaanadii caanka ahayd ee abwaanada ahayd oo xaaladeedu meel xun marayso safiya tusmo waraysi bay bixisay waraysigii ay bixisay oo ay inoogu sheegtay si dadban ayay inoola hadashay safiya tusmo walow aanu xaaladda xagga hoos aan wax u ogahay laakiin dadka Soomaaliya doonaya inaan u iftiimiyo in gabadhaasi si dadban inoola hadashay oo tiri geeriyo nolol baan u dhaxayaa saacadii la doonona waxa weeye boonkaas uu ila qarxi karaa waxaan filayaa inaanu ila qarxin wayna dhici kartaa nolosheeda inay burburto halkii bay maanta taagan tahay ninkii rikaatada ku haystay ee gabadha xumeeyay ee nolosheeda baabi'iyay ee geeriyo nolol u dhaxaysiyo waraysigii kadib maxaa dhici kara maxaa soo socda iyo siday wax u dhacay bal waraysigana waxay daawan waxyaalo badan baan rabaa inaan iftiimiyo horta haddaan leeyahay anigu baawar aan ku xidhi karo oo micnaha hadalkaas adigu aad isaga xidhay isaguna uu ku soo qoray meedihiisa inaan anigu xidhay waa ninkii iyada qabay safiya tusmo sheekadu waxay ka bilaabatay ninka iyada qaba waxayna ku dhamaataa ninka iyada qaba anigu haddaan isaga xidhayo dhowr saacadood meel yar oo halkan ku soo xidhnaan iyo kuma xidheen isagu horta koow wuxuu ahaa qofkii soo helay meeshan ku xidhanay sax ay diishay isaga dabcan soo ma ahayn haddana media wuxuu ku soo qoray inaan aniga la xidhin isagaana halkan ku jiro soo ogaaday anu horta isaga haddaan xidhi lahaa at least 10 sano u goyn lahaa waa markay u yartahay 10 sanadood baan xidhi lahaa beetro waa marka uu yiri waa la xidhay gabadhan wuxuu yiri ninkii jiray hasha kudna waa dilay waxna waa u heliyeen ayadoo gabadhan markii horeba ku jirta kidnap iyo rikaato xun lagu hayo nolosheedii oo dhan kasta la baabiyay ayaa CID da magaalada Hargeysa gacmaha u sii qabatay oo la xidhay telefoonkeeda 20 casha laga haystay halkaan wuxuu yiri ninkii jiray meel aan rabay roob ma igu helay isagoo murmursiye ka dhiganaya CID da magaalada Hargeysa maadaama telefoonkeeda ay muddo haysatay markii Snapchat-keeda ku soo noqotay telefoonkeeda loo keenayna Snapchat-keedii oo lock out ay aragtay halka sorta ciyaaraha ninkan ka bilaabo laakiin tii ugu xumeed bay maanta dhex fadhida waraysigan markuu soo baxay kadib waxa u bilowday halkii ay sheegayso faras baan dul saarnahay qoortaana xarig igaga jira faraskaas xilligu doonuuna dhaqaaq kara si walba gabadhaas waa inoola hadashay bal aan ku soconno معناها حرق وحي هاي بنديتو سلاها لكن باور ومليه ده منا ربي منا حل ده أود أنقف كحره on maaragtay umalihi haddana nin magaaladiisii jooga oo waliba reehebel kasii ahoo dadka magaaladan liid gareeya intaan imaado intaan iska xiro kabla hours yar soo xirnaado haddana la soo daayo micnaha ay sameynayso halka waxay idinka cad ninkan waa dadka magaalada degan ee deegaanka u ah in aanay wax awood aanay ku lahayn safiya tusmana waxay ku jirtaa qool bay ku jirtaa safiya tusma waxay ku jirtaa god bay ku jirtaa rikaatana lagu haystaa dhan kasta ma hadli karto gabadhaasi nafteedu badbaaday u baahan tahay waxaana idin sheegayaa waraysigan ay bixisay kadib waxa dhici doona ee soo baxa
وواح أي صفية تصمى إنه شيء يصير تذكر صومالي حلقة يابا إن أنا هذا الكذا أفرسن لكن واحد بدل إلى هي كبد بادية قبل ناس أيها قصص قبل ده نفته در خطر بكوشتا خطر وين بكوشتا ayaa jirin ay wishnu sababta sheegi la miyuu sheegay isagu sababta la aan fadhi inaad adigu xidha kaliya ayaa barnaamijyada ku qoran fahmay haddii hub inta lagu soo qaato gurigaaga la soo weeraro wad isdifaaci kartaa wad dagaalami kartaa wadad baad u yeeran kartaa iyo dariskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax ku soo gurmada laakiin gurigaaga hadday ka dhex bilaabato ama naagta aad qabtid ay kaaga bilaabato ama ninka ku qaba ay kaaga bilaabato waxba ma qaban kartid weey ujeedka fahma di meesha ka hadlay Safiya Tusmo ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxa maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi karaa ma hadli karto ma sheegi karto meesha ay joogtaa magaalada Hargeysa waa ninka meesha uu deganaa waa meesha lagu xiray waa meesha hadda ugu hanjabayo ma hadli karto bay ka dhigan tahay laakiin 2 sanadood ayuu nolosheeda gabadha baabiyay 2 years ayuu digada ka dhigay 2 sanadood ayay geeri iyo nolol u dhaxaysay wuxuu yiri ninkii jiray alamtara iyo liilaaf soo dhaaf libaaxay qofka bini'aadamka markuu caburo marka daba dibad u iskana Safiya Tusmo waxa lagu talagelin inay sheegto qorshaheedana ma ahayn laakiin way ahayn weyday wixii baa ka tira batay qufa iyo jacaylka ba lama qarin karaayo waa qoomamiyo ciil buu yiraahdo waan ka jiray ciilku qof markuu ka bato iyo xumuhu lama qarin karo laakiin hadday arintu meel xun maraysaa xaaladda Safiyo iyo waxa ku sugan tahay way idinka dabageenay wax ka codsanaya haddii aad gabadha wax u qaban kartid barnaamijkaasi share garay gabadhaana hala badbaadi cid walbana waa u sheegnaa ilaa madaxweynaha Soomaaliland ma dacwada gaarsiin it was live in hell marka si you know dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dul qaadan karaan maanta ma rabo inay hadashay rabtaa mana hadli karto inay wax sheegtay rabtaa mana sheegi karto inay wax cadaysay rabtaa wayna baqaysaa waa gabadh meesha joogtana de hore inuu ku sheegto xigtinku meesha waa magaaladiisii deegaankiisii reerkiisu tagay mid kale aaw dadkii ninkan ka dhashay war dadkii cuqaashay wax garadkii iyo tolkii eelkii aaw maxaa gabadha loogu daawanayaa inaan gumeedkan xun ee aan rabbi iyo ragtoona aqoon ee gabadha xaaskiisa ah xilihiisii ahay de gabadha iyo wiilku waa isku siray sidaa la arkay ula dhaqmaya war dadku gobonimadu wuxuu ku jirtaa waa la isqabtaa war qofka xun waa la qabtaa meesha Soomaaliya la jooga saasa la isugu jaban kara shilin baa laga dhigi kara gabigiis maxaa inanta looga qaban laayahay inaan gumeedkan aan waxa weeye aqliga lahayn garashada lahayn cadaab baan ku jiraa labada sano u dambeeyay noloshada cadaab bay hebid waxaan way dhacaan nin xun waa jiraa laakiin aaway soo in la qabto maaha taabto this actually the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan ahayn qof muslina haddaanan ahayn qof lagu soo koriyay dhaqan iyo diin haddaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo maaragtay qof weyna and I would go crazy or lose my mind haddaanan qof muslim ahayn waa waalan lahaabed waxa lagu waashana waa tahay bal ilaahay baan kugu dhaarshay naagtaadii oo guriga ku joogtay xaaskaagii ahayd oo ka dhex bilowda ka waradii ka bilowda ilaahay baan kugu dhaarshay saad noqon lahayd daraga qaarkood mindi bay marin lahayd waaba gowrac lahaayba kinikeedi hada qabay halkaas waxa ka dharanaysa markaas gabdhaha Soomaaliyeed qaylinayaan kalsooni darra imanaysa waxa kan aan waxaan u malaynayaa waxaan wax laga shaqeynayaan waa mashruuc socda iyo NGO weyn oo loo soo shaqo tagay weyn gabadha dulmiga iyo cadaalad darrada ku dhacday wallahi billahi tallahi kama aamusayo waxaan kaloo idin sheegayaa maanta oo aan idin hayaa gabadhaas in caawa saacada aan idin hadlayo nafsadeedu inay khatar ku jirto
xilligii doonaan ay wax gaari karaan waxa soo socda haddii aad wax aragtaan social media ku aragtaanna yaa waa waxa uu ku hore ugu talagalay qoftan waa isdhiibtay waxay taagan tahay miski toogashada taagan tahay waa isdhiibtay faras baan saaranay mid waxay qabsaday ana waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda igarab taagan walaashay aad tahay fanaanadeedii baa tahay qof aanu jecelahay baa tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan baa madaxa loo saaray inaan gumeed gabar Soomaaliyeed xumeeyayna wallaahi oo bilaahi oo tallahi baa loo haray insha Allah bidilaahi karim maxkamad gaar ah loo furayaa guuxan gudiya ka fariisanay wallaahi nin kasta inta meesha loogu taro baa ciqaabteeda la marinayo haddii maamulada iyo dawladaha meesha jooga ay ka qaban waayeen maalin walba gabar Soomaaliyeed oo miskiin oo ooyeysa yaa oo le naftiba ay haysaa waxaan noqonay rag ka adag dumarkooda naagahoodii iyo xilahoodii iyo reerahoodii ka adag baan noqonay adduunyada ka tamar kale iyo tayo kale oo aanu leenahay ma jirto inaanu gabar ka ooyisiino bas xiniyaha ay weynaan gabar ka ooyisiino dal ma dhisan karno dad ma noqon karno wax ma baran karno dawlad ma noqon karno sharafteedii karaamadeedii baan dibadda u soo saarnay naagaha iyo timo dheertaydu baa dibadaha joogo tumaytaana tii dib noogu soo noqotana anaga naasaa ka garaacay ballan weeye in la eedaabaan ku yidhi gabar Soomaaliyeed dambo inta la kursado iyo mid la dilo iyo mid wax laga duubo waa ballan in la eedo dawladnimada waxa ka horeysaba badbaadinta gabdhaha Soomaaliyeed baa ka horeysa inaan gumeed liita oo aan dadnimo lahayn waxa laga yaabaa in sida aan anu wax u filayo inay wax u dhicin oo anu dareemayo aan maaragtay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa in the same time na waxa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto maxay filaysaa waxay filaysaa wax walba uu ka hayo social media inuu soo dhigo sababta 2 sanadood buu dhibaataynaya 2 sanadood ayuu leeyahay xagga u jeeso marna xagga u jeeso aamus hadin sida yeel fariiso ka ciqaab ku jirtay way hadashay Soomaa waxay filaysaa wax weyn inuu ninkaas soo bandhigo nin nice qaba ya هذا الأها مصور أها مقال أها لكن وحي كبق يساوي لا ضحي ومعقول إنه لا شيء ده وايو لا أريد هرجيسو تتجوا بعض هرجيسا تتجوا بعض هيدين تتنقل بعض هيدين تتنصب بعض هيدين تشرف لوية قان بعض هيدين تسقط بعض هيدين إن نميت كحن إن أنت سيدا أبهدلية قبلها عاركة حيالا عرب كنت قال لي هاجر اروح عينتها لا يغبطوا dadka isleefka ah ee America waxa jiray dad adooma ah si qaldan baa loo diri jiray qofka waxa la saari jiray faras baa lagu fadhiisin jiray xadhig baa qoorta loo suri jiray geedka ka soo laalaado qofka noloshiisa ila Soomaaliyeed bas waxa sida u hadlaya heerka la gaarsiiyo gabar Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed qofka isleef adoon isku tilmaamaysa ee toogashada u taag safiya toogasho u taagantay wayna ogeyd in toogashadaasi ay ku dhacayso haday hadasho laakiin way qarin weyday xaaladdeedu maanta masuul xaalkeeduna caawa meel adag buu maray waxa ka hadhay inta farasku dhaqaaqayo faraskaasi adoo dhaqaaqo meedkiisa warfanaya I don't want to go deep marabo inaan galo laakiin last 2 years I was sitting on that horse faraskaas baan ku taagnaa ma doonaya batiri inaan hoos u hadlo ma doonaya inaan wax walba sheego way baqaysaa laakiin 2 sanadood faraskaas ku taagnaa geeriyo nolol baan u dhaxiyay xanuun kasta oo ku dhacay isbitaal xataa wala dhigay beelad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un my life can be shattered like sida galaaska inuu u jabo ayaan yar u taagnaa ilaa haddana u taagnahay I don't know xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono laakiin I had a difficult time baan soo maray ilaa haddana difficult time baa saaran I was hiding for a long time culays baan soo maray iyo waqtiyo kala duwan iyo xanuuno walina waa ku jiraa beelada but I don't think inaan isku kib gareeyo is not helping me
waxyaalo waxaa jira aanad even your best friend kala hadli karin aanad kala hadli karin walaalkaa hooy safiya tusmo arrintan waraysigan markii ay ka hadashay oo ay sheegtay oo ay waraysigani faafay culayskii hore ka badan iyo waxa weeye rikaato kii hore ka badan ayaa loo geystay haddana xaaladeedu ma fadhido wax walibana way dhici karaan Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa dadka social media isticmaala haddii la soo geliyo gabadha fiidiyoyadeeda iyo sawiradeeda meel kasta in la report garayno in la report garayo la dacweeyo YouTube haddii la soo geliyo haddii Facebook la soo geliyo haddii Snapchat la soo geliyo haddii TikTok la soo geliyo meel kasta oo gabadha sawiradeeda dambe iyo waxa soo socda ninkaasi soo wado la soo geliyo waa inaynu report garaynaa waa in la dacweeyaa YouTube Facebook Snapchat Instagram TikTok meel kasta oo la soo geliyo gabadha waa gabar Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed aan leeyahay gabadhan waa caad idinku kala waa gabar Soomaaliyeed walaashin fusuq iyo dee kalaasay ciyaar iyo wax kale tan kuma gelin waxaan waa ninkeedii reerkeedii buu ahaa cadaabtu guriga kaga bilaabatay nin xulo in gumeedana baa helo magacii Soomaaliyeed iyo ragga magacoodii sharaftoodii hoos u dilay oo inanta Soomaaliyeed ka oysin waana nin xanuunsanaya waa xanuun haddaad aragtid nin gabar Soomaaliyeed dad waxaa jira ku raaxaysan dadka inay dilaan dad waxaa jira adduunka xanuuna badan baa jira dad baa jecel inay dhiigga arkaan markay dhiig arkaan bay farxad iyo pressure iyo helaan ma fahmaysa markay dhiig u muuqdo dad baa waxay jecel yihiin dadka qaylinaya qayladooda inay dhageystaan dad baa waxay jecel yihiin qof nool oo la gogoynaya inay daawadaan dad baa filmaanta khaaxda ah horarka ee tunka la iska baashay halka la isgoosanayo jecel dad baa rag baa marka waxaa jira rag jecel inay gabdhaha dilaan inay gabdhaha dhibaateeyaan in gabadhu oydo in gabadha ay silciyaan rag bay ugu baxdaan waa xanuun marka ninkani wuxuu ka mid yahay dadka xanuunsanaya gabadha xaaladeeda waraysigan kadib ma fadhiyo waxaan u sheegayaa ninkaasi macnaha cuqaasha iyo waxgaradka iyo reerka uu ka dhashay waxaan leeyahay qoor iyo xero ka daba gaaleeyo gobonnimadu waa in yaro cagaha dhulka lagu hayee war gabadha sharafteeda iyo karaamadeeda hala badbaadiyo waxa xun ee dhintay dib jirkaana gabadha laga qabto waa hooyo Soomaaliyeed waa gabadh fanaanada waa gabadh abwaanada waa gabadh magaranaysaayay in gabdhaha sidaa loo galo xeerku ma ahayn dhaqankeena Soomaaliyeed kuma jirin dhaqankeena in gabadh Soomaaliyeed laga oysiiyo anagu waa aragnay nin dib jiro oo intuu gabadh sawirkeeda xado Facebook iyo meelaha soo dhigo YouTube-yada iyo meelaha soo dhigo oo waa aragnay laakiin ninkii oo soo taagan oo gabadhii rigaataynaya oo 2 sanadood waxa weeye xoog ku haystay inaad sii daawataan ma aha haddii arrintaas ninkaas wax damba sameeyo gabadha xaaladeedu ma fadhido caaw xaalkeedu ma fadhiyo wax walbana saacad kastana waxbaad social media ku arki kartaan horta dadka social media isticmaala waxa leeyahay arrinta waa report gareynaa waynu dacweynaa meel kasta oo la soo geliyo waynaan la dagaalanaa si aan gabadh dambe oo Soomaaliyeed in gumeed xoolo dib jiri sida ugu dhibaateen cuqaash iyo waxgaradka iyo dadka ninkani ka dhashay waxaan leenahay war Ilaahay ka baqa qabri iyo qiyaama jire isma qaban waayna gabadhan waxaan xulay dulliga gabadha ka qabta isku jabiya waxay ninkan gabadha sida u galaya ninka xaaskiisa iyo reerkiisa iyo gabadha xiriisa ahayd noloshiisa dhan waxa weeye gacanta ku haysay sida u galaya iyo asxaan u sameynay oritaa idin dhaafi maayo tolow inta idin dhaafi maayo gabadha ninka laga qabto dulliga xulay dib jirka ninka laga qabto gabadha eegi khayr buu dadkii Soomaaliyeed dumarkii iyo ragga baa khayr kala qaaday hayta mid kasto waxa sameeyay hadii gacan biran uu qaban lahaa waxa sama dhacay si sheergara barnaamijkaas ay u gaadho cid kasto arinta wax ka qaban karta Safiya Tusmo waxa leeyahay sadkay bir baa tahay hooyo wanaagsan oo gob ah oo waxa weeye sida birtow adag baa tahay oo aqli badan oo adkaysi badan bartaada ka sii wad ubadkaaga korso is adkay insha Allah bidillahi kariim dulliga xulay dib jirkaan waxa ma sameynto وولاك عفتح بوري برامج يفتمد حقوقك وذا تاني تدوم كل بدور واحد كتجيا ورسل نبادين يقبله لا يلالي أرى لا يلالي قبلها تمدير تلا يلالي تمدير بالله سكون عفية الدون كواحد عرية يجور طاب السن مركز رجل لما هذا دمر بعد سيء دمر بعد بدك كتيري ورا الدونكو تمدير بالله سكون عفية قبلها لا يلالي الله يلالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته